السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24 bishii 11aad 1447 ku beegan 11kii bishanaad 2026 inta dhimatay Ilaahay u naxariisto inta xanuunsan Ilaahay caafiyo wixii muraadka umuurooda Ilaahay sahlo. Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa ku furan buuqa kaga imaanayo xisbigiisa iyo xisbiyada kale oo khilaaf ka jiro khilaafkaasoo banaanka u soo baxay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu xilkiisa ka digi doonin uuna ballan qaaday inuu magaranaysaa dhalinyarada u abuurayo fursado shaqo. Starmer ayaa doonaya inuu sii hayo hoggaanka xilliga ay siyaasiyiinta kale ay sugayaan fursad kula tartamayaan hoggaanka xisbiga isagoo ballan qaaday isbeddel waaweyn dalka ka sameeyo isagoo qiray in Britain ay muddo 20 sano la daaladacaysay dhaqaale oo xumaaday oo bulshada ay sii kordhiso. Khudbadiisii oon lahayn siyaasado badan ku cusub balse ay ku jireen baaqiyo ugu diray xisbigiisa iyo weerar uu ku qaaday mucaaradka ayaa Starmer sheegay inuu xoojin doono xiriirka midowga Yurub abuuri doono shaqooyin wanaagsan oo dhalinyarada loogu talagalay. Starmer ayaa si cad u sheegay inuu sii joogi doono xafiiskiisa isagoo yiri ma iscasili doono wuxuuna sidoo kale isku dayay inuu kasbado taageerada mudnaanta xisbiga Labour kadib markii xisbiga toddobaadkii hore uu la kulmay guuldarrada ugu weyneyd oo ka soo gaartay xisbiga talada haya muddo 30 sano. Ra'iisul Wasaaraha wuxuu ugu digay xisbigiisa khilaafka iyo kala qaybsanaanta gudaha xilli ay wajahayso xisbiga Reform UK mid aan khatar ah. Wuxuu khudbadiisii London ku yiri waan ogahay in dadka ay niyad jabeen xaaladda Britain iyo siyaasadda qarna xitaa anigu ayay iga niyad jabsan yihiin. waan ogahay inay jiraan dad kale iga shakisan balse waxaan caddeyn doonaa inay qalad ku jiraan. wala xariiq qodob inaan kusoo gabagabeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. isla qodobkii labaad war degdegna soo gaar ayaa ku saabsan Ra'iisul Wasaaraha Starmer ayaa ku furan buuq xisbiyada kale. 2 gabdhood ugu cadcad mid waxaa la dhahaa xildhibaanada Labourka Catherine West ayaa dib ugu bilowday ololaheedii ka dhan ahaa Ra'iisul Wasaare Starmer waxayna ballan qaaday inay bilowday olole hoggaanka looga qaadayo Keir Starmer balse waxay ku baaqday inuu dejiyo jadwal doorasho lagu agaado si bisha September loo bedelo hoggaanka. cadaadis xoogan ayaa maanta wajahaya Starmer iyadoo 41 xildhibaan ay Labourka ay hadda si cad ugu baaqeen inuu iscasilo sida ay sheegtay Sky News. xildhibaanada Catherine McNeil oo matasha Newcastle North ayaa noqotay xildhibaankii ugu dambeeyay ee ku baaqay inuu Ra'iisul Wasaare Keir Starmer xilka ka dego waxayna barteeda bulsho ku qortay waxaan hadda caddaatay in loo baahan yahay hoggaamiye cusub oo xisbiga gaarsiiya dhammaadka xilligan iyo doorashada xigta. walaalaha labada qodob inaan soo gabagabeeyo. Starmer 41 xildhibaan ayaa si cad u sheegtay inay magaranaysaa ay sheegeen inay magaranaysaa xilka uu ka dego
oon waqtigiisa dhammaaday een xisbigiisa kaasna waa xisbi xildhibaanada Labour xisbigiisana waxaa ka jira khilaaf gudahood oo aad u xoogan oo bannaan ku socday asana wuu is adkeynaya weli ilaa goormo gaari doonaa marka waa arkayna wararka waa ishaan ku hayn doonaa wixii ma garanaysa kusoo kordho waana arkaya waxa xildhibaanada si caadi baan waxay leeyihiin iscasil meesha waxa ay doon ku haysay waqtigadan ugu dhamaaday marka hadduu xisbigaada ma garan xisbigiisa uu khilaaf ka dhex jiro haddana xildhibaanada kale ayaga ka jiro ma garanaysa dhib ka jiro dee warka xaalad adag waaye marka odayga waa halkiis waa loo sahal waa arkayna wixii kusoo kordho waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu